Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada koorsiskeena cusub aan bilaabi doono maanta, kaasoo noqon doono Islamic Banking and Finance. Marka hore aan iskaga baro, magacaygu waa Abshir Cabdicasiis Muudey. Waxaan ka soo baxay jaamacadda loo yaqaano Simad University. Programka aan soo dhameeyay wuxuu yahay waa Banking and Finance. Ardayay everybody oo rabo macnaha in uu si qaas ila kulmo ama su'aalo qaas i weydiiyo, waxaan idin sheegi doonaa lambarkayga. Waxaa ila soo xiriiri kartiin IMO, Gmailkayga, WhatsAppkayga, already Facebookkayga, already waa ila soo xiriiri kartiin. For every time waa diyaar. Insha Allah waxaan idinka caawin doonaa wax waliba oo ku saabsan banking, ha ahaado Islamic Banking and Finance, ha ahaado conventionalka, labadaba waa idinka caawin doonaa insha Allah. Intaas kadib introduction kadib maanta waxaan gudagalaynaa cashirkeena koowaad oo noqon doona chapter 1. Chapter 1 waxaan ka hadli doonaa meesha ugu jeedaan Introduction of Islamic Banking and Finance. Chapter 1 keena waxaa noqon doonaa Introduction of Islamic Banking. Introduction of Islamic Banking. Okay, already waa ujeedaan magacayga. Just waxaan ka soo iloobay addresskayga iyo WhatsAppka iyo imaha insha Allah already. Waa inay siin doonaa oo notepad ahaan caadi aniga soo diyaarin doonaa, aniga soo diri doonaa. Insha Allah. Okay, cashirkeena aan gudagalno. Cashirkeena koowaad wuxuu noqon doonaa what is the Islamic Banking, maxaa la dhahaa. Also inta aanan gelin cashirkeena waxaan idin sheegi doonaa ama idin faa'iideyn doonaa just waxaan afkayga ka sheegayna it is good for you, macnaha aday ku muhiim tahay inaad iga qorato ama notepad aad ka samaysato. Waayo just waxaa jiro waxyaabo badan aan meeshan ku soo qorin isla markaana maskaxda ku haayo aan jeclaystay inaan idinla sheegareeyo. Isku day marka mar walba ood aad dhegaysanaysid cashiiradeeda in aad qaadato notepad si aad notiskayga aad u sii qorato. Maybe waxaa laga yaabaa waxa meesha ku qoran inay ka fiican yihiin waxa afkayga aan ka sheegi doono insha Allah. Also waa taqaanin horta wax banking la dhahayo. Just banking waxaa lagu definition gareeyaa. Also wuxuu leeyahay definitions badan ayuu leeyahay. Marka la dhahayo banking waa intermediation waaye. Marka labaad waxaa lagu dhahaa banking wuxuu yahay waa intermediation between surplus and deficit waaye lagu dhahaa. Banking muxuu yahay marka qaar waxaa lagu dhahaa waa it is intermediation waaye lagu dhahaa, kaasoo u dhaxeeyo deposit and lender. waa macnaha wax ama aalad ama active waxa shaqo oo banki qabto weeyaan. horta banking waxaa la dhahaa waa banki already waa taqaanaa waxa u dhaxeeya qofka dhiganaya lacagta iyo qofka la deeminaya lacagta ayaa marka waxaa la dhahaa banking. Okay, mid labaad waxay tahay banking waxay tahay is a financial intermediation, waa dhexdhexaadiyaha lacagaha. Also banking wuxuu leeyahay definitions badan. Mararka qaarkood waxay dhahaan banking waxaa loo yaqaanaa intermediation waaye between kaasoo u dhaxeeyo surplus iyo deficit ayuu u dhaxeeya ayay dhahaan. This is also known as waxaa loo yaqaanaa banking ayaa loo yaqaanaa. Cashirkeena koowaad wuxuu ku saabsanaan doonaa introduction already waa soo sheegnay. waxaan ka bilaabi doonaa definitions. Just hadda waxaan sameynaynaa macnaha waxaan bilaabi doonaa Islamic Banking. Just conventionalkana waan arki doonaa,
laakiin hadda waxaa il wanaagsanaaday also always inkastoo aan ahaa micnaha aynu nahay micnaha bulsho islaam ah waxaa ila wanaagsanaatay inaan ku bilaabo marka la dhahayo banking dhinaca islaamiga ah islamic banking inaan ku bilaabo okay and what is the maxaa la dhahaa islamic banking maxaa la dhahaa islamic banking maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa is a banking waa banking also waa soo sheegnay banking waxa la dhaho it is intermediation waa dhihi kartaa it is financial institution waa dhihi kartaa it is intermediation between surplus and deficit waa dhihi kartaa also waa dhihi kartaa whatever you like okay islamic banking waxaa la dhahaa is a banking waa banking or ama waxaa dhihi kartaa lagu dhahay waa banking activity waa shaqo uu micnaha qabto bangiga waa shaqo uu caadi bangiga qabto camal waaye waxay kala duwan yihiin male but laakiin just also waxaa idin ogeysiinayaa ama ila socon doontaan micnaha aniga ma aqaano erey wax loo fasirayo also waxaa laga yaabaa looga qaar inaan saas ay yeelo waxaan isku dayayaa inaan also dhamaa idin la akhriyo kadib aan micno guud idin saaro ayaa isku dayayaa qaabkaasaan ku sharxi doonaa haddaba ila socda okay islamic banking is a banking or a banking activity that is a consistent with the principles of a sharia Islamic law and it is a practical application through the development of Islamic economics. Islamic banking waxaa lagu dhahay waa bangi iska caali ah ama waxay tahay waa shaqo kaasoo oo qabto bangiga but laakiin Islamic banking also based on wuxuu ku basgareysan yahay waxa loo yaqaan shareeca waxay shareecada waafaqsan tahay ama Islamic law leh hab dhaqanka islaamka saamayn ugu jeedaan and it is a practical application through the development of Islamic economics ama waxaa dhihi kartaa waxay tahay ama waxaa loogu talgalay Islamic banking waa inuu develop gareeyaa ama sare u qaadaa dhaqaalaha islaamka okay marka meeshaan marayno su'aal waxaa taalo maxaa sabab oo Islamic banking loo sameeyay maxay tahay maxaa loo sameeyay sababta Islamic banking maxaa loo sameeyay ama maxay u soo baxday Islamic banking waxay u soo baxday ilaa ay tourism just to keep on your mind maskaxdii ku qabta Islamic banking waxay ku soo baxday labo qaabka koowaad oo ah religion diinta iyo mid loo yaqaano Islamic economics iyo dhaqaalaha iyo diinta ayaa waxay ku soo baxday Islamic banking okay as a such a more correct terms for Islamic banking in a Sharia compliance finance mararka qaar waxaa loo yaqaanaa Islamic banking waxaa la dhahaa ama waa erey kaasoo ah waxa ay shareecada aqbashay ayaa waxaa loo yaqaanaa Islamic banking okay aan sii socono and Islamic traditional hab dhaqanka islaamka the essence of the Islam nuxurka islaamka waxaa laga soo daraabgareeyay also ama waxaa laga keenay quraanka iyo dhaqankii nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee okay the history of the Islamic law begins with the revelation of the Quran also taariikhda islaamka waxay bilowday ama sharciyada islaamka wuxuu bilowday ama wuxuu ka dhex bilowday quraanka kaasoo ka kooban principles and conjunctions we subjected kaasoo loo magacaabay waxaa ka mid ah ritual waxaa la dhahaa dhaqan ayaa la dhahaa it is also tradition is waa camal waaye ama kalaad waa marriage oo kii guurka ahaa divorce rinka secession leh waxaa la isbedelka commercial transactions
waxaa la lahaa transaction kaasoo ka dhaco micnaha commercialka waxaa la lahaa isheeg what I'm calling you isheeg commercial waxaa la lahaa adii transactionka ama exchange-ga ka dhaco waxyaabaha la isgudbisanayo sida goods and services already iyo banal law waxaa la lahaa sharciyada ciqaabta ayaa la lahaa banal law okay meeshaan waxaa ku arki doontaa components of Islamic finance insha Allah cashirkeena labaad meeshaas ayaan ka bilaabi doonaa components of Islamic finance. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.